الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، الله تبارك وتعالى isaga ayaa ajasheena qadaray, arsaaqdeena qaybiyay, wax kasto dhacayana rabbi tabaaraka wa tacaala qadarkiisa iyo qadihiisa iyo xukunkiisa ku dhacayaan. iimaanka mabaadidiisa asaasiga waxa kamida oo ruuxu uusan mu'min noqonin ilaa uu rumeeyo in Allah tabaaraka wa tacaala wax kasta uu horay u qorsheeyo u qoray, sidii uu u qoray ee uu qoondeeyay u qorsheeyay wax u dhacayaan. nabigu wuxuu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi, waxyaabaha dhacaya iyo ashyaada xukunkooda iyo maqaadiirtooda alla wuxuu qoray intan samaawaadka iyo dhulalka la abuurin 50,000 oo sano ka hor. waqtigaas wax walba qornaa. ربنا تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علما. كدبنا ربي تبارك وتعالى سيدي قريبي وحود عيان مركي دعيان السقا أبو ريا إرادتي سيكو إيمانيان وحسك إيمانيا مجر وحسكينا ينا مجر وحدك لكينا يسنا مجرت السقا دوني السقا أنا أبو ريا ربي تبارك وتعالى السقا أنا هري أقاذي السقا أنا قري ربي تبارك وتعالى. سأستردد بالنبي أنه صلوات ربي والسلام عليه وحليه هاي الله تبارك وتعالى أجش إسقى إذين قيبي وقدري أرزاقنا إسقى إذين قيبي أدوم مدي سعدوا ضانوا أدون كسين عدو النعبي هي عدو جعلي هاي بوحبو كسين، لكن إيمانك عدو جعلي هاي عدانا هاي المسيو سيدا استردد رزق واقيب سنية هاي أجشنا وقدرنتهاي وحا أدهليسية وحا كقول عيانا وحوري وقرشي سناوي. نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه مركو ربي وحيقا كسو دتشيي ساقو ويل دالنيراه وريم مكاه عربتي جزيرة دقانيدي ويقروا سنواي مركاسا وحي لهذين انت ويل كان دالنيراه اللو كسو دتشيني وحيقا odayaasha waaweyn Maka iyo Daa'if ka dhashay labadii magaalo meesha ugu muhiimsanaa way. odayaasha waaweyn caanka la yaqaan magaca leh ma Ilaahay waxyiga ku soo dejiyo intuu wiil yar la doonanayo. Allah tabaaraka wa ta'ala waa u jawaabay, wuxuu yiri ahum yaqsimuna rahmata rabbika, oo Ilaahay naxariistiisa ma yaga qaybiya. الله تبارك وتعالى يصطفي من يشاء، عدو دونه أي رسالة دي سو دورا إساقنا قيبت بحينيا أيقو محي كيين ربي وحي تبارك وتعالى نلشو ذا أنك أقيبني نلشو ذا أنك أقيبني إساقا قيبيي متكو دونو كو يرين كو دونو أبادين متكو دونو قدين كو دونو سين متكو دونو عزين متكو دونو دلين. الله تبارك وتعالى وحوله أرزاق ذوذا ينولش ذوذا أنك أقيمني مركزان قاركود قارك كل الدرجات كسر مريني حوله رورتي هنتدي كرسي أودي فهمكي وحول بعلمكي الله واقي تبارك وتعالى أدومضنا كمسمين قاربو قار كسر ريسي محل يدين كلا سر ريسي ليتخذ بعضهم بعضا سخريا si qaarkiin qaarka kale aad uga dhigataan oo ugu noqdaan adeegayaal. limaada lianna hadid aadamaha mid walba meeshiisa wuxuu raba lagu siiyo oo sidoo raba wax loo siiyo oo la kaafiyo aadamihi inuu isu adeego wax isu qabto la helo mid hawshan ku qabta ayaa meesha ka baxaysa. baahi baa keenaysa midka guriga ku dhisaya, baahi baa keenaysa miska suuliga ku qodaya, baahi baa keenaysa midda ariga ku raacaya, baahi baa keenaysa midka badeecada ku keenaya. haddii aan la kala sarrayn lahayn oo kulli la wada deeqi lahayaa ku adeegi lahaa. Allah tabaaraka wa ta'ala xikamkiisa uu ka leeyahay inuu adoomada ku kala sarraysiyo qaybinta
حكمك كجرا قار كمدو تلماميا ليتخذ بعضهم بعضا سخريا سي قار كود قار كلا أديغيال أي ugu dhigtaan oo la isugu adeego noloshuna isu dhamaystirto aadamuhu u wada noolaado sidaas rabbigan tilmaamaya tabaaraka wa taala sidaas daraadeed waxaan ilaahay baa qaybiyay tabaaraka wa taala haduu qaybiyay waa inaad marka rumayso waxa kugu dhacayana waa qoranye waxa aad helaysana waa qoranye ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم وحول بهروء قرية هوانا قرشيسية عبادة بن الصامت صحابي قال لي له أي ويل كيسو لها اللي يوحر ويل كيجيو إيمانك معان كيس هلي ميسد لدن كيس معان درن كهلي ميسد إلى أد رميسو يا حقيقة إيمانك قاري ميس إلى أد رميسو وحكو قرد عي إنو سنمرنكو قرب مرين سيك استهدادو تحدرت وحك استهداد سميس وحيكو قرب مرين إنو سنمرنكو قرد عي وحوا قرن يهوانا قرشيسين إنو كو قرد عيانا ويسي قرنيد ساستراد اللهم باتشين كرو inuu ku garab marayana way qornay sida daraadeed lagu guma ridi karo hadii caalamka oo dhan isu tago hadii la isugu ka tago lagu guma ridi karayo mabda'aas uu sheegay markaas wuxuu ku yiri wiilkaygiiyo waxaan maqlay rasuulka sallallahu rabbi wa salaamu alayhi oo dhahaya Allah tabaaraka wa ta'ala wixii ugu horeeyay oo uu abuuro qalinku ahaa kadibna markuu abuuray wuxuu ku yiri qor qalinkii wuxuu ku yiri rabbi oo maxaan qoraa wuxuu ku yiri qor wax kasta oo imaan doona qadarkiisa iyo qiyaastiisa iyo xukunkiisa qor ila qiyaamadu ka iimaanayso qalinkii markii buu dhaqaaqay wuxuu xariiqay wax kasta oo dhici doona ila adduunku ka gabagaboobayo wuxuu ku yiri wiilkaygiiyo waxaan maqlay nabi maxamed sallallahu rabbi wa salaamu alayhi ruuxi sida aqeedada waxaan ahayn ku dhinta aniga iga mid ma aha buu nabigu sallallahu rabbi wa salaamu alayhi ruuxi aan sida wax u rumaysnayn oo qalbigiisa mabda'aasi uusan ku jirin dariiqi nabi maxamed ma hayo sallallahu rabbi wa salaamu alayhi laana mabda'i asaasiga aha ee mabaadiida iimaanka kamid aha ayaa maqan ama nusqaamay sidaas daraadeed maxaa waajibku yahay hadii ilaahay tabaaraka wa taala aynu ogsoonay wax walba inuu horay u qaybiyay waajibkaagu waxa weey waxa ilaahay qayb ku siiyay raali ku noqo ku qanac iimaan ku qab wixii ilaahay qayb ku siiyay ha ku yaraato ha ku badnaato adigoo ogaanaya wixii rabbi ku siiyay ama ha yaraada ama ha badnaadee laguma siinin in lagu jecel yahay ee waxa lagu siiyay in lagu imtixaano kan lagu yareeyayna waxa loo siiyay loogu yareeyay bal inuu sabra la fiirinaya kan lagu badiyayna ee loo waasiciyayna waxa la fiirinaya oo lagu imtixaanay bal inuu shukriya la fiirinaya Allah tabaaraka wa ta'ala macnaha soo quraanka inoogu sheegay nabiguna sunnadiisa ku faahfaahiyay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi laakiin insaankii عقلي يريديس يفهم حمديس سيدا سكة قد سنبه فهمي فأما الإنسان إذا ما ابتلاه إن آدمه مركو إلهي امتحانه وأو كراميه وأو نعميه وأو وحول بسي وحو الربيسي وهلو وحو لي ربي أكرمن ربي قيبا إكرامي والله دورتي دورنا أهي تتكوان كسيتا وفانتميا وكبريا الله وحده تبارك وتعالى آدمه هدي له امتحانه رزقنا لو عليليو اسغنا وحوليه هي ربي وايهانيستي وانعي وليدليي على علبك بحيا الله وحده تبارك وتعالى كلا ساس معها ساد مودين معها وركن wax la siiyay oo nawaad imtixaanantahay ma aha in lagu doortay warkan la qadiyay lagu yareeyay lagu celiyo ma aha in lagu nacay arintu saas ma aha waa ibtilaa iyo imtixaan sida u fahan marka adiga oo fahmay inaad imtixaanan tahay waajibkaagu wuxuu yahay marka wixii ilaahay uu kugu keenay ee musiiba ana ku sabir wixii ilaahay ku siiyay ee wanaagana ka shukri raali ku noqo
nabigeenna wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi isagoo la hadlaya abu hurayra isagoo la hadlaya saxaabadiisa wuxuu nabigu yidhi sal alla alayh wasalam shan arrimood yaa qaata yaa iga qaata oo ku camal falo ku dhaqma ama cid kaloo ku dhaqmaysa gaadhsiiya oo bara abu hurayra wuxuu yidhi aniga yaa rasuul allah markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal alla alayh wasalam uga bilaabay ittaqi almaxaarima takun acbada annaas wixii ilaahay xarimay iska ilaaliyo ka fogow waxaad noqonaysaa addoommada midka cibaadada ugu sita warda bimaa qasama allahu laka takun agna annaas wixii ilaahay qayb kuu siiyeyna raalli ku noqo waxaad ahaanaysaa allah addoommadiisa midka ugu taajirsan ee ugu qanisan baad noqonaysaa wixii ilaahay kuu qaybiyey raalli ku noqo taajir baad noqon qalbigaagaa taajiraya qalbigaagaa degaya qalbigaagaa xasilaya noloshaa raaxo kuu noqonaysaa humuum iyo walbahaar fara badan iyo culays fara badan iyo cudurro fara badan oo aadamihii ku dhacay baad ka fayoobaanaysaa oo ilaahay tabaaraka wa tacaala kaa ilaalinaya wixii ilaahay kuu qaybiyey raalli ku noqo waxaad noqonaysaa addoommada midka ugu qanisan waatuu nabigeennu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh haninimada iyo taajirnimadu ma aha xoolo badni ma aha hanti badni ma aha haninimada iyo taajirnimadu waa in qalbigaagu uu ku qanacsan yahay wixii ilaahay ku siiyey mar kale nabigeennu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa liibaanay ruuxii ilaahay islaamnimo siiyey oo islaamay oo diintan qaatay kadibna waxay ilaahay uu ku irsaaqay wax ku filan oo aan ka mashquulinin aakhiradiisa waxaan ka badnayn noloshiisa laanna wixii nolosha ka bataay wax ka fiican buu kaa mashquulinaya aakhiradaadii buu kaa mashquulinaya xoogaa kafaaf oo ku filan la siiyey kadibna ilaahay ku irsaaqay oo siiyey qanacsanaan iyo inuu iimaan ku qabo ku dego raallina ku noqdo wixii ilaahay qayb u siiyey ruuxii saddexdaa laga helay waa liibaanay buu nebi maxamed yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh kama fii saxi muslim sidaas daraaddeed raalli ku noqo wix ilaahay ku siiyey oo haddaadan raalli ku noqon maxaad samayn kartaa waa waxbaad bedeli kartaa wax waa qoranye uurka hooyada adoo ku jira baa mar kale la qoray 40 beri buu ilmuhu uurka ku jirayaa isagoo nudfa ah 40 kale wuxuu noqonayaa xinjir 40 kale wuxuu noqonayaa cad hilib ah malag baa markaa kadib la soo dirayaa 4 arrimood baa loo soo dhiibayaa qor baa la leeyahay waxaad qortaa addoonka hooyadii uurkeeda ku jira wax kastoo uu samaynayo camala qor ajashiisa iyo cimrigiisana qor risqiisa iyo wuxuu cunayay iyo wuxuu kasbanayana qor inuu ahlu naar yahay inuu ahlu janno yahayna qor markuu qoraan nafta lagu afuufaya nafiba kuguma jirto marka wax la qorayo waxaan oo dhan la kala qorsheynayo waa mar kale sidaas daraadeed mabda'aasi waa qaali waa mabda' keeni kara humuumtan iyo murugtan iyo cibaadadan maadada la caabuday aadamihiina uu ku baaba'ay adduunya caabudka mid jirada mid musiiba ku dhacda mid waasha mid isla hadla mid humuum iyo murug la wareera cudurradan aadamaha baabi'inaya fayoobidoodu waxa weeye in aad rumayso waxaan ilaahay baa qaybiyey allah keenay raallina aad ku noqoto ilaahay qaybtiisa tabaaraka wa tacaala iyo siduu wax kuu siiyey iyo sida uu wax kuugu ridayba alimaamu alasmaci calayhi raxmatullah wuxuu ahaa imaam ka mida a'immadii culimmadii xadiidka iyo luqada caan ahaa xilligii salafka ridwaanullaahi calayhim ayaa wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mida baan baadiyaha u baxay markaan baadiyihii tegey kadib waxaan la kulmay buu yidhi haweeney reer baadiye ah haweeney reer baadiye ah qurux bay u dhalatay axsana annaasi wajhan yani dumarkay ugu quruxsanayd haween aad u quruxsan bay waxaa qaba nin dadka ugu foolxun nin aad u foolxun bay xaas u tahay hoos joogtaa su-aal buu weydiiyey marka wuxuu ku yidhi naatanay naama sidanaad raalli ku tahay adigoo ilaahay quruxdan ku siiyey inaad ninka noocan hoos joogto miyaad raalli ku tahay markaasaa waxay ku tihi warkanow waxaad tidhi waa wax xun hadalkaagu ma toosna waadna qaldan tahay oo maxaa dhacay waxay ku tidhi waxaa laga yaabaa
ninkan aad sheegayso inuu isaga iyo rabbigii wixii u dhaxeeyay hagaajiyay anigana ilaahay abaalgud iiga dhigay maadaama rabbi iyo isaga wixii u dhaxeeyay uu hagaajiyay abaalgudkii ilaahay siiyay inuu aniga noqday baa dhici karta oo sida loogu abaalguday anuguna aan halleeyoon kharibay aniga iyo rabbiga wixii noo dhaxeeyay isagana markaa cuquubo la iiga dhigay waxay ku tiri sidaas daraadeed miyaana raalli ku noqonaynin wax ilaahayba raalli iiga noqday allahu akbar imaamkii jaliilka caalimkii su'aasha keenay wuxuu yidhi way aamusisay buuri oo ma hadal baad sii wadi kartaa halka haddii la istaago allah baa sidan wax iigu qaybiyey xikmaduna sidaasay ku jirtaa maslaxadayduna inay sidaa tahay baa dhici karaysa isagana ixsaan iyo wanaag uu sameeyey abaal in ilaahay ku siiyaa dhici karta anigana dembi aan galay iyo xumaan aan galay cuquubo la ciqaabay inay tahay dhici karaysa allah sidaa ii qoondoyay ii qorsheeyay miyana raalli ku noqonayn waa gabadh reer baadiye ah oo baadiyaha ku nool laakiin caqiido toosan oo wanaagsan bay leedahay qismada ilaahay iyo qaybtiisay raalli ku tahay alimaam al-asmaci wuxuu leeyahay fa askatatnii way aamusisay way aamusisay ficlan waa saas sidaas daraadeed irda bima qasama allahu laka takun aqna annaas wixii ilaahay uu kuu qoray kuu qorsheeyey ku siiyey raalli ku noqo xadiid baa nabigeena sallallahu alayhi wasallam ka sugan uu leeyahay allah tabaaraka wa tacaala addoonkiisa adduunyada ayuu u diidaayo ka hor istaagaa sida mid idinka mida ruuxa jiran ee ka jiran uu cuntada ugu diido ruux markuu jiran yahay cuntaduna dhibayso xanuunka ku siyaadinayso dhibaato kale u keensanayso cuntada loo diidaa waa laga hor istaagaa isagoo u baahan علشان وجرنيه انتظرنا دبي وكيزنيس سداسو كلا ربي تبارك وتعالى لله المثل الأعلى سداسا كلا ربي أدومدي سقار كمدو الدنيا ذا كهر استاجا أديدا علشان هدوسيو آخرته دي أدون كودي بوافسادية ما نكاسا حمانتكو بالله ونيسا ما نكاسو آخرتي فسادينيا ما نكاسو دقاقيا ما نكاسو حمان بالله بيا ما نكاسو اسقوبيا وإمي سينو أرقني qaar badan oo intayna waxaysaninna masaakiin oo waxba haysanin toosan masaajida camiraya quraanka akhrinaya diinta u dadaalaya safka hore ku jira maalintii waxoogaa la siiyana aadan arkaynin wuxuu ka buskiciyay ribu qaatay wuxuu ka buskiciyay masaajidii ka carar ka haajir wuxuu aaday meel aaban masaajid lahayn wuxuu bilaabay waxoogaagii ilaahay siiyay inuu kibir iyo isla weynan ka qaado sanka taago wuxuu bilaabay waxoogaagii ilaahay siiyay intuu ismahadiyo inuuba ilaahay diintiisa kula dagaalamo shalay markuu wax la'aan ahaana safka hor uu ku jiro ilaahay buu gacmaha u taaganay maxaa fasaadiyay waxoogaaga la siiyay la fasaadiyay ogow marka marar fara badan rabbi wuxuu wax kuugu diidayaa waa dantaada iyo maslaxadaada adiguna waxaad moodaysaa malaha hadii lagu siiyo dantaada iyo maslaxadaada way alla og meesha khayrku ku jiro al khayru fi makhtarahu allah wixii ilaahay ku dooray أيا خيرك كجرا يرالي كنقو صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد أنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك